shacabka Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Nairobi caasimadda dalkani Kenya ayaa si isku dhaf ah u soo dhaweeyay TV-ga cusub ee Waaberi TV oo ka mid noqday TV-yada Soomaaliyeed ee ku hadla luqadda afka Soomaaliga. Dhammaan shacabka Soomaaliyeed ayaa ka codsaday Waaberi TV inuusan noqon TV qabiil ee uu noqdo TV Soomaaliyeed. Dhammaan dadkii soo dhaweeyay Waaberi TV ayaa waxay ka codsadeen in Waaberi TV uusan noqon sida TV-yada Soomaalida oo kale oo uu ka soo waramo meel kasta oo ka mid ah Soomaaliya iyo inuu ka hadlo xaqiiqda jirto. والله runtii waa farxad weyn oo waa soo dhaweeyay ummaddu waxay ka dhisan tahay ama ummadu ku nooshahay waxa weeye saxaafadda waxaan u hambalyeeyaa bahda Waaberi TV TV-ga cusubna waan soo dhaweeyay soo dhawaadaan leeyahay waan idin hambalyeeyaa waxaan rabaa inaad tihiin kuwii soo dayn lahaa ama sii dayn lahaa kuwa dhibaatada ku dhacday aan laakiinse ahayn kuwa baabiilaya ummadda ama siyaasiyiinta intaad soo dayn lahayd codkooda soo daaya kuwa dhibaatadu haysato ee bulshada u baahan barnaamijyo wacan oo bulshada waxtar u ah baan ka codsan lahayn inaad noo soo daysaan oo bulshadeena horumar u ah oo dadka dhibaataysan lagu tabaalaylayo inaad markaas tusaan baan rabaa midda kale aan ka codsan lahaa waxaan dhibaatada nagu dhacday ummadeena Soomaaliyeed waxa weeye TV-yada badan ee hadda inta badan waxay ka sheekeeyaan waxay buunbuuniyaan xanuunkii ummadeena ku dhacay ama waxa la dhaho qabyaaladda TV-gan inuu ka soo horjeedo barnaamij qabyaalada la dirir la dhaho oo taxana inaad noo soo daysaan oo dhalinyarada la wacyi geliyo dhalinyarada waqti siisaan dhalinyarada muwaadiniinta ee aamusan ee guryaha ku jira inaad soo saartaan oo wareysataan oo barnaamij wacan oo bulshada dhaxalgal u ah aad soo daysaan baan ka codsan lahaa hana nagu buunbuuninina kuwa nabaabiyay xaqayagii iyo dalkayagii baabiyay hana nagu buunbuuninina kuwa siyaasiyiinta ee buunbuuniya bulshada danta yar soo saara meeshay bulshada ka burburtay baan jeclaan lahaa marka inaan ka codsado barnaamij qabyaalada ka soo horjeedaan jeclaan lahaa inaad noo soo daysaan qabyaalada dirir dhaho barnaamijkaas aan ka codsan lahaa dhalinyarada ku kulmisaan kulanka dhalinyarada aad baad mahadsantii ما شاء الله السلام عليكم magacayga maxamed Suleymaan Bare runaantii TV-ga Waaberi waa soo dhaweynayna hadii aan nahay ummadda Soomaaliyeedna waxaan dhihi karnaa hadda dhibka taagan laba wax oo naga haystaa mid waa social media midna waa qolyahan fanaaniinta la yiraahdo heeso waana kuwa waxyaabo kasta oo wadanka ka dhacsiyo bumbuuniyo ummadana dagaal iyo dhibaato sii horseedo yuusan noqonin Waaberi TV mid cid kaliya ku shaqaysato cid kaliyana u shaqeeyo ha noqdo mid ummadda Soomaaliyeed u shaqeeyo hadii la yiraahdo aniga waxaan ka tirsanahay urur la yiraahdo Isli Deaf Association waa urur dhagolayaal ah marka ururkaas iyaga ah waa dad wax bartay oo educator people ah bachelor ku jira degree waa ku jira master baa ku jira laakiin hal dhib ay qabaan waa dad Soomaali ah ku nool xaafadan Isli magaalada Nairobi laakiin dhib ay qabaan waxa diin islaamka ma garanayaan waxaan u asaasanay waxa diin islaamka barnaa TV-yada Soomaalida waad aragtay wali ma arkin TV sign language-ka u turjumayo oo dawladda ay news-ka akhrisan karaan oo Soomaali ah xitaa luqadda Soomaaliga ma garanayaan waxaan ka codsan lahaa shaqaaliin inaad ku darsataan qof yaqaano Soomaali ah oo sign language garanayo si ay dhagolayaashan xuquuqdooda u helaan mahadsantiin horta TV-ga cusub aad iyo aad aan u soo dhaweynay aad iyo aad baan idinku hambalyeynaya marka xigta marka ugu horreysay idinkaan idin hambalyeynaya maanta nagu soo booqday goobtan oo jaamac iyo dhalinyarta faraha badan meeshan aan isugu nimi wadaniyiinta aad iyo aad baan horta marka hore idinku mahadcelinaya idinka TV-gan cusubna aad iyo aad aan u soo dhaweynaa runtii Waaberi TV aad baan u soo dhaweynaya waxaan jeclahay wax kasta ee ummadda Soomaalida anfacaya ee horay u dhigahaya ee horumar ay cusub wax kasta horumar ah waan jeclahay waxaan leeyahay TV-ga Waaberi ku soo dhawo ummad ku jecel hambaliya ayaan ku leeyahay waxaan ka codsan lahaa hal arin inaad saxaafadda maanta Soomaalidu ay leedahay inaad ku khilaaftaan arintaas oo ah waxaan arkay barnaamijyo badan oo inta la soo diyaariyay la yiraahdo waxaan u galeynaa barnaamijkii dhalinyarada oo laga matalayo heeso kaliya ama heeso bes ah
maalinkii loo sameeyo la yiraahdo maanta waxa iskala dhalinyarada hees bas la soo daynaya waxaad ogaataan dhalinyaradu heesaha TV-yada laga shido ma matasho dhalinyarada waxay rabaan horumar in loo sheego wixii wadankooda anfacaya in loo sheego wixii dadkooda anfacaya in loo sheego wixii diintooda anfacaya in loo sheego waxaan kale ka codsan lahaa xaqiiqda dhabta ah ee wadankeena ka jirto in ay soo saaraan oo banaanka soo dhigaan ayagoona nagu bumbuuninaynin oo banaanka iska dhigahaya qabyaalada qabqablayaasha dhigcabayaasha iyo waxa qurunka oo banaanka yaala oo dhan aad baan u mahadsantiin xaraga aad u mahadsan tahay waa bari TV in hawada soo galo waa sugeynay waan ku faraxsanahay TV-ga waa bari waxaan ka codsanayaa inuu horta ilaaliyo dhaqanka iyo wadanimada marka xigtana waxaan ka codsanayaa inuu soo TV-da qaarkood uusan noqonin oo TV-du way badan yihiin oo TV macna waxba caan ku yahay moogta TV siyaasad bumbuniya TV diini baa laga soo daayaa TV-na songs ama hees ama wax lamid ah marka inuu TV-gan waa bari waxaan ka codsanaa inuu noqdo ku u hiliya wadaniyiinta iyo siiba dhaqanka aad baan u mahadsantiin waa bari TV ayaa waxa uu ka mid yahay TV-yada caalamka ka howlgalo xamdi xarago waa bari TV Nairobi.